saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan Salaam Academy ee barashada luqadda Carabiga. waxaynu ku guda jirnay barashada kelmadaha Carabiga ah halkaas oo aynu ku guda jirnay ficilka maadi ama ficilkii tegay oo luqadda Ingiriisiga lagu yiraahdo past tense. ficiladaas oo u dhigan howlgal hore loo fuliyay oo 3 xarafla ah marka laga reebo anzala oo 4 xarafla ah. iminkii haatan waxaynu baranaynaa 5 ficil ee hore loo sameeyay ee kala ah calima, carifa, shariba, farixa, qabila. halkaas oo ay noqonayso calima wuu ogaaday, carifa wuu gartay, shariba wuu cabay, iyo farixa wuu farxay, iyo qabila waa uu aqbalay. haddaynu soo noqono higaadinta calima wuxuu noqonayaa calima cayn fadxa leh loo geeyay laam kisra leh loo geeyay miim fadxa leh. ca waa loo akhriyayaa, li waa loo akhriyayaa, ma waa loo akhriyayaa. calima waa uu ogaaday, calima waa uu ogaaday. kelmadda labaad carifa cayn fadxa leh loo geeyay ra kisra leh cari loo geeyay fa fadxa leh carifa wuu gartay. kelmadda saddexaad sha fadxa leh loo geeyay ra kisra leh shari loo geeyay ba fadxa leh shariba wuu cabay. kelmadda afraad fa fadxa leh loo geeyay ra kisra leh fari loo geeyay xa fadxa leh farixa waa uu farxay. kelmadda shanaad ee u dambaysa waa qaaf fadxa leh loo geeyay ba kisra leh loo geeyay lam fadxa leh qabila wuu aqbala. marka kelmad kasta kelmadda ku xigta way la xiriirsan tahay marka laga reebo ra oo ku jirta carifa iyo shariba iyo farixa halkaas oo ay kala goysay xarafka u dambeeya sababta oo ah waxay ka mid tahay xuruufta kala gooya ee aynu hore u barannay. waxaa sidoo kale hoos dhigan xarafka saddexaad sida laamka hoos dhigan ee li iyo ra'da hoos dhigan ri iyo ra'da hoos dhigan ri iyo ra'da hoos dhigan ri iyo ba'da hoos dhigan ee bi. calima wuu ogaaday, carifa wuu gartay, shariba wuu cabay, farixa wuu farxay, qabila wuu aqbalay. calima wuu ogaaday, carifa wuu gartay, shariba wuu cabay, iyo farixa wuu farxay, iyo qabila wuu aqbalay. calima wuu ogaaday, carifa wuu gartay, shariba wuu cabay, farixa wuu farxay, qabila wuu aqbalay. ilaa iyo hadda waxaynu baranay 13 kelmadood oo luqadda Carabiga ah kuwaasoo dhammaantoodba ahaa ficilka maadi ee tegay. dhammaan fadxe ayay lahaayeen marka laga reebo anzala oo nuunkeedu signa lahaa ama sukuun lahaa oo markaasi ku joojismaya anzala uu dejiyey. balse 5tii kelmadood ee u dambeeyey ee aynu maanta barannay mid kastaaba xarafka dhexda ugu jira waxa uu ahaa mid jaban ama kisraysan. xarakada uu qaadanaya alkasra kasra waxaa loo yidhi soomaaliduna ay u taqaano kisra wuu jebinayaa xarafkii halkaasoo xarafku markii hore uu ahaa calimo oo kale xarafka dhexe ee laamka ah laam balse markii uu kasre qaatay ama hoos dhig wuxuu noqday li. macnaheeda markaasi waxaa loo arkaa inuu jabay. kasra macnaheedu waxa weeye wuu jaba marka waa hoos dhig. waxaanaynu rajaynaynaa maadaama oo aynu hore u soo qaadanay 4 kelmadood loo geeyey 4 kelmadood loo geeyey 5 kelmadood oo isku noqonaya 13 kelmadood inaynu imika iyo wixii ka dambeeya aynu kelmado badan qaadan doono oo intii hore ka badan. marka waxaa loo baahan yahay in ardayda beginnerka ama hooseysa ee aynu jecel lahay inaynu sare u soo qaadno inay markaasi ka faa'iidaystaan halka lagu qorayo sida loo qorayo halkaasaad kala socotaa xarakadeedii waad la socotaa. marka waxaa loo baahan yahay in dadaal dheeraad ah uu qofku siiyo si uu ku xaqiijiyo natiijadii wax ku oolka ahayd uu rajaynayay inuu kaga midho dhaliyo higaada si aynu markiiba si dhaqso leh uga baxno oo kor ugu soconno. waxaana muhiima inuu qofku akhriyo oo ku celceliyo qorana isla markaana ay maskaxdiisa ku sawirato. haddii la fahmi waayana lagu celceshado wax dhibaato ma keenayso. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.